بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو وناكسن داوديال ku soo dhawaada barnaamijka beeraha iyo xoolaha barnaamijka beeraha iyo xoolaha alaaba xilligan oo kale waxaad ka daawataan TV-ga Hirshabelle barnaamijka maanta waxa marti inoo ah qabiir dhanka beeraha ah qabiir Muuse Absuge Daahir qabiir Muuse ku soo dhawaaw barnaamijka TV-ga Hirshabelle waa mahadsantiin waraysiga aad igu timideen TV-da Hirshabelle marka aan warbixin idinka siiyo bariiskan aasadiisa horo 1980kii ayaa aasadiisa ayay timid waxaana lagu bilaabay mashruuca waxa lagu bilaabay beeraha tuulada Banaaney mashruuca tuulada Banaaney ayaa lagu bilaabay watahay adigoo mahadsan qabiir Muuse Absuge waxaad warbixin inaga siisaa bariiska iyo xilliga la bilaabay waxa noo sheegtay in la bilaabay bariiska 8meeyadii waxaan lagu bilaabay mashruuca Banaaney beerihii dhul ku yaallay oo tijaabo ahay oo ku yaallay tuulada Banaaney yaa bilaabay wadankee bilaabay mase waxa bilaabay rag khubaro ah oo beeraley ah oo soo bartay culumta beeraha oo Soomaaliya u dhashtay waaye marka uu warayso bariiska awaabulkiisa waxa keenay Shiina keentay Shiina keentay waxayna ku tijaabisay tuulada Banaaney Shiinahaas waxa soo hor socday odayaal oo Soomaali ah oo Shiinaha oo luqadooda ka saayo waxay yimaadeen tuulada Banaaney waxay waceen odayaasha dhaqanka odayaashii dhaqanka yiraahdeen waxaan rabnaa annaga idin socono wax dhib lena ma jiraan waxaan rabnaa inaad dhulna siisaan aan ku baroweyno wax soo saarka xagga zarca bariiska odayaashii waxay yiraahdeen wax nagu cusub waaye waxa oo maxay dhaanay maanta noogu bilaw ee waaye balse idinka seed rabtiin xaaladiina ka warma dhulkan dhul oo leedahay waaye shacab oo shakhsiyaad ay u leedahay waaye marka idinka sidee rabtiin dhulka ma boobi rabtiin dhulka ma waxismi rabtiin xaaladiina sidee waayo waxay yiraahdeen maya dhulka ma idinka boobeyni dhulkiina idinka iska leh laakiin waxaan anaga aan rabnaa inaan dhulkiina aan wax soo saar aan ku bilaawno oodna ku nacfisiin oo wax soo saarkeeda aad ka faa'iidiin wax kaloo dhib wadana dhulkiina haddii mashruuca ultimo oo xataa laga tanasulo xataa dhulkiina idinka iskale cid idinka haysato malaha dhul boobna uma soconi laakiin waxaan rabnaa in macallimiin idinka dhigno xagga bariiska nigu beerno si fiican oo si aad iskugu filnaataan odayaashii waxay yiraahdeen waayahay dhib ma jiro unka is arkeenay noogu soo noqda waa baxeen odayaashii dadkii oo yimid waa la diray dadkii turjuwaanka ah iyo raggii oo qabiirka oo bariiska Shiinaha ah waa la diray kadib waa iskugu yimaadeen kadib haddana waa yimaadeen hay maxaa barnaamij noo haysiin ay yiraahdeen odayaashii waxay go'aan soo gaareen bariiskaas la beeraayo haddii naga qaadanaynin oo waxayna anaga aan leenahay oo in gawaari u kaysatin naga rararnaynin oo gaarigiina ku guuranaynin oo tafadal waa idin qaabilaynay oo ciidaynana meesha naaga tagaysin waa idin qaabilaynay odayaashii waa la soo dhaweeyay odayaashii marka la soo dhaweeyay kadib waay ayaa la yiri warqada la kala qortay oo ya kala qorana warqadaha ma dawladii Soomaaliya xilliga jirtay iyo qoladii mashruucii Shiinaha ayaa kala qortay waxa kala qorana Shiineeskii iyo dadkii oo tuulada Banaaney Shiineeskii dadkii tuulada Banaaney ayaa kala qortay dawladana kama marneen waa la jirtay si fiican marka go'aana lagu gaaray odayaashii waa ogolaadeen marka waxay yiraahdeen hadda waxaan rabnaa
6 hektar 7 hektar 8 hektar oo tijaabe ah oon ku bilaawno dhulna nii lagama rabo bariisna nii lagama rabo idinkaan rabnaa in qabiirka beeraha in idinka dhigno wax soo saarka bariiska in idinka dhigno tafadal walow oo guryan iska jiri oo la yiri dadkaanay ama ay dhulka naga dhacaan ama bariiskan sheegay tuhum badana jiray ala yaal waxa la yiri dhulkayna sali ma aha sali oo la duubanayo oo garabka la saarnayo ma aha dhulkayna aniga u nool aniga u degan cid naga qaadi kartana ma jirto waxay ku beerowaan dalag leewaay aan qaabilno kun feer ma la yiri sidii lagu heshiyo lagu afar haystay kadib waxay keeneen katarbil baldoosar ay keeneen qalabkii beeraha ayay keeneen cagafyadii baldoosaradii waxyaalihii ay keeneen waxaa la yiri lama odi iska soo bixiya oo annaga hoggaanno ah gudoomiyaha tuulada xaaji ciise ibraahim la dhahay ku xigeenkiisa xaaji ciise cumar lamadoodii la yiri tafadal idinka hawshaas idin dhiibni tijaabadii la sameeyay tijaabada marka la sameeyay alxamdulillah rabbil caalamiin shukru waa lagu guuleystay ma sha Allah bariiska kaale aragaas noqday ma sha Allah has noqday kaale arag bariiska madaxa u isgashtay raanta intaasaas keenay haddii aragtid ka dhaxbax kuma qabanayso markii intaas lagu heshiiyey cagafyadii beerihii kulli wixii oo dhan jibeelo toray kastaan waxay kastaan iska foosay kastaan inta aan ka dhaxgalo khabiir muuse marka ay tijaabadaas ay sameynayeen oo waxay sida ay sheegtay dhowr hektar ay ku sameeyeen marka dadka tijaabada sameynay mashiinaysa oo shaqaalaha ka shaqeynay mise waa dadkii deegaanka u dhashto oo tuulada banaanay ahay shiinaha sidoodaba iyaga howl markay qabanayeen ninka mas'uul ba ahaadee gacantaas kula jiray laakiin xooga mar horaaba lagu heshiiyeybo meeshaas kumigii ka soo baxayo inay ay ahaato kumi oo ku laabanayo shacabka tuulada oo leh oo dhulka maxay dhaanay oo milkigooda leh waa inay ku soo laabataa wax dheefkana waraabka iyo adduunyada iyo waxyaalahaas oo dhan waxaa lagu heshiiyey kumbad wax kastoon qabanayno waxaan idinka aad wax ka tihiin waaye foreman oo ka tihiin waaye dadka deegaanka ah tiyaa lasku afgartay waa la qaabili kaale arag bariiskiya beerihiyaa la aratuuray waa baldoosaa la geli beerihiyaa la aratuuray waa la falay waa la erbishay waa bariiskiyaa la keenay waa la fardhi haddii la fardhi bariiskii kaale arag wuxuu noqday bariid ma sha Allah markuu noqday kadib odayaashii waa farxeen niyada u timid ma dhulkaayna ma nacfigaana ku jiri ay yiraahdeen markaas bariiska markaas dhulkana dhul cusub oo ahaa bariiska si kala mataqaanida meel farta la geliye ma lahayn madaxa u isgashtay waa isbuuxiyey geedkiiba 6 iyo 7 ayaa waxa falar ah u keenay cub beertii meel far la geliyo male dhulkoo dhanba aragiisa bariiska wuu daday waa qari calaa iyo xaal markii qaabkaas ay noqotay bariiskii magala beeri waxaa la yiri haya gaaladii waxay u kaasteen bir la yiraahdo takuusi ay kaasteen waa bir oo maxay dhaanay falaanjo ku waxaysan oo wareeganayso oo lugtana laga isticmaalayo oo waxaa la keenay marka bariiskii waa saaray lugta ku waxaysmay markii la soo jaro waa miya bariiska marka la soo jaro waa bariiskii sidaasna waa finjile cod iyo xikal reeb bariiskii waa bislaaday ilmihii dhowraay waxay noqdeen awlaadayni ilmihii anaga aan dhalnay ay noqdeen adi si kastaba macnaha dhan waliba faa'iido ka soo gashay dadka deegaanka walba faa'iidadeeda waxa cunayay dadka deegaanka oo carada xaq u leh si fiican waa tahay qabiir
bariiska xilligaas oo la tijaabiyey ma hal nooc oo ahaa waxaan la soconnaa bariiska oo ka baxa magaaladan kan ugu caansan waa fintaduwe iyo fintakuwatare marka adigana waa iiga khabiirsan tahay hal nooc maa la tijaabiyey mase labadaas noocba mar baa laysla wada tijaabiyey hal noocaa la tijaabiyey waxa waaye marka ugu horo hal noocaa la tijaabiyey markiis noocaas 7 hektar hal nooc kaliya ma lagu dhigin 7 hektar hal nooc kaliya ma lagu dhigin 24 hektar laga dhigay 22 hektar laga dhigay shendo hektar laga dhigay shendo afshines waa shendo bariis oo raantiisa gaaban oo falar badan oo halkii xab kaliya oo عن توب اسكن قنايو لكن وحكا عن دولكان قبتي او سي فيعن اي ددكان رير جوهر اي u beereen waxaan waaye hadaan qaldaneen fintaduwe iyo fintakuwatare hadda aniga macnaha waa saamaan sax waa ma ka bixi way marka dhulka ma la qabsoo jaantoogaas maxaa dhahay waa la qabsaday ma sha Allah usugaaba ugu daray ma gadamba fintaduwe iyo dhanbo in laga tagay heer gaartay oo sheendooga la abuuro sheendooga arkeysdu wax ka bariis badan malaha oo ka dhalmo badan malaha marka takuusiyaasa la keenay igu celi meeshaas qabiir bariiska marka la beero qaab noocee ah ayaa loo diyaariyaa dhulka bariiska diyaarina dhulka qaab noocee loo diyaarina waxa loo kala nooc waa bariiska midna waxa waaye samsaayo midna waxa waaye oo waa irbisha in la geliyo waa la firdhisaa mid firdhis waaye midna simisaayo waaye marka simisaayada horta koowdii سمسايا لو معايداني على ديارنا سمسايا ما قد ديارست او ماشي كبربارست مركز سمسايا دي كعده مركي اي عبار اي سمسايا دي سعوتو ان شن iyo 20 markay joogto 20 macna biri markay joogto simisaayada markaas ka bacdi laba xisma hadba dhulka siisay mid 25 mid waa kasi badanaa 30 hadba ninka sidiis marka meesha samsaayada waxa la yiraahdaa dadka hadda dad badan oo waxa jir aan fahmaynin samsaay waxa la dhahaa bariis lagu diyaariyay meel oo lagu soo barbaariyay dhul loo diyaariyay kadibna laga soo raraha lagu abuurayo marka simisaayadaas bariiska meeha lagu barbaarinaa shaqaalaha siibaya makiina daldalays ama dadka qaadaya ebel dadka qaaday hadba wixii markaas la heli karo nin kastaba shan oo fiil camala la siinay oo nin kasto ku tilaalo lacagana lagu siinay marka tilaalkaas la wadaa waa tilaalay beertoo dhan daqiiqad yar kadib waxaad arkaysaa dhulkii cagaaran oo beer istaagay intii markaas dhulka intii magasimisaayada la diyaariyo magasimisaayadaas beerta lagu diyaarinayo adina meeshii simisaayada u guuri lahayd aratuura marinay dhulkii aratuura kadib xoogo yar qoraxda kaadinaad ku sugay oo intii qoraxaysataa sugay markiis burkii qoynay oo xoogo dhididsanay markuu jabo oo qoraxda ka badato kululaato oo jeejeero waxa loo keenay erbisho erbisha markii la erbisho kadib waxa loo keenay kan kala waaye oo firdhiska ee waa maya bariiska simisaayada meeshii oo la geeyay oo loo geeyay oo loo diyaarinay diyaarintii waaye beerti kale loo guuri lahaay oo lagu talaali lahaay sidaas loo diyaarina jiba buur markii hore kawawa lagu dhigay markii dambana jibela toora yimid oo buurreynaayo meeshaas lagu diyaarina simisaayadana waxa waaye idana markii la falo kadib markii la erbishay kadib intii fardhinin waxaad soo qaadanay qori la yiraahdo biyondo qori alwax oo dheer oo wax ka sameeyeen waa beyond way mooska la leelayna geesaa ka soo maray saasad leedahay gadgadaal soo soconay saasad ku leelaynaysa markii okay ka dhigtay dhulku waa samiyay tiraad oo biyaha isqabtaan afarteeda koono oo meelna god ahayn meelna doon ahayn markaasaad bariiska markaas haddii rabtid nin maga hor bariiska jawaana ku shubay afka ka xiray jawaana ku shubay afka ka xiray waxa ku ridaysaa
kiliga biyaha la dhex dhigaa biyaha maga la dhex dhigo lama cabo ama la disku jiro waxoogo waa soo fuuraa maga soo fuuro kadib aad la kor imaanaysaa waa gartay meel kale lagu soo diyaarinayo dabadeedna beerti kale weyneed loo soo buurinayo waa fahmi kartaa sidiisaba bariiska markii la beero iyo goosashadiisa imisa u dhaxayso qabiil uu ku baxaa bariiska horta sidiisaba hadba gacantaada uu ku xiran yahay waa 4 bilood waa xilliga 4 biloodas bariiska ku soo go'a si fiican 4 bil uu ku soo go'a asbariidka ku soo go'a sax marka beerti ilaa iyo soo goosashadiisa waa 4 bilood 4 bilood waaye si fiican asbariidka ku soo go'ayo intaas waxaad u haysataa 4taas bil muxuu ugu baahan yahay marka qofka beeraya bariiska muxuu ugu baahan yahay inuu sameeyo 4taas bilood biyo haday noqoto daawo haday noqoto shaqooyin kale laga qabanayo muxuu u baahan yahay bal adigoo dadka u sharxaayo jumlad guud ka siinayo wuxuu u baahan yahay marka ugu horeyso markii saas soo kulantay oo qaabkaas loo sameeyo wuxuu u baahan yahay taxadir wuxuu u baahan yahay korjoog wuxuu u baahan yahay maxay dhaanay biyo wuxuu u baahan yahay bacrin daawo wuxuu u baahan yahay maxay dhaanay buufin qashin saarkii wuxuu u baahan yahay control dhulka naftigiisa meelaha ingeg waraabka naftigiisa hubin inay beerta biyaha wada gaareen in kale hubin meelaha doon meelaha god haddii ay biyo laan dhacdo ka waran maxaa imaanaya haddii biyo la'aan dhacdo waxaa imaanayo rajabeelaa imaanayo bariiskii oo ismaskiininayo isagoo sidiisaba asbiile ku baxo biyihii markuu waayo hore u kac male bariiska inuu wax ka go'aan ma ogiye bariiska inay wax ka go'aan ma ogiye hore u kac ma lahaanayo maxaa jira sidiisaba biyo ku nool yahay ma jira qabiir muuse bariis aan biyo ku bixin oo sida galeedo kale ama 3 mar la waraabina ma jira inta adiga waxaan ku dhax jirto inta ogaalkaada ama waxaan aqoon u leedahay ma jirto meeshii laga dhiilay waaye haddii ay taas ay dhacdane ko tamkiisa keenayo ama iskeenayo ma aha waxaa jira haddaba dhacdo oo bariiska meeshiis ka baxay oo dalag galay loo bedelay bariiska soo baxo oo sidiisaba oo wax oo maxay dhaanay oo raanska yeeshanaya jirto laakiin ma u dul qaadanayo birta bariiska arkeysid mariska makiinta cadeynta oo mariska marka qobka laga finjilaayo markaas haddii biyo badan heli qubkaasaa kuu sheegaya haddii biyo yar helina waa jajaba wuxuu noqonaa budo ama wuxuu noqonayaa lamas u kala dhaca si fiican waa adiga jabaa galaayo wax jabka ka badbaadinayo waa biyaha iyo daawada waay marka bariiska waxaa sheegtay in markii la soo jaro takuusida la geeyo la finjilo oo cooska iyo asiga mirihii la kala reebo markaas kadib xagee la geeyaa ilaan bariiskii qoba ku jiro mirtii hadda ma noo muuqato markii oo jawaanadii lagu shubo bariiskii la habeeyo sidee la yeelaa markaas gabaacad dadka u fasal bariiska markan kuu sheego intii takuusiga la gaaran horta qaroofiya lagu shafaa waa tahay jibaal waaye qaroofiya lagu shafaa marka lagu shafa kadib dhulka la dhigo dhulkaas dhigaysidna meelay engegan waaye meeshii qoyan waa bariiska waxaa ku imaanaysa cilad ama waa qoyaankaas uu geersiinayo marka takuusigaas magala takuusiye kadib markaas ka bacdi waa la buubinaa markii hore oo la buubinayay wax ma laheenba magii dambe casriyaa la gaari qalab buubinayo sidii kaambeenkii iyo kuluntay oona kuu jafaayo oona kuu buubinayo oo teendhadaada geysanaysid oo teendhada kugu tuuraayo heerkaasaa la geersiiyey waa tahay waxyaabo badan xilligii dawladda ay jiri jirtay bariisamaadka waxaa jiray bariiskan in uu magaaladan uu ahay dalagga koowaad maadaama marka waxaa kaloo jirto inuu ahay dalagga koowaad marka laga reebo sida galeyda iyo sisinta oo kale magaaladan ay caanka ku ahayd magacyo badan oo magaaladan ay la baxdayna waa jirtaa
sida joor ama jiddo kale u baxday صح waa magaca bariiska keeni magaca bariiska keeni bariiska keeni joor ama jiddo maxay ku timid joor ama jiddo waxay ku timid bariiskii waxa bariisa la beeray bariiskii dhulka la qabadsiiyay beeraleyda mar liska amar qaadanayay ahayd xilligan dadka beeraha diriska ee waxa la isdhaayay maanta bariis dhigno khalaaf ma jirin wax la isku tawfiiqayd maanta bariis aan dhigayna maanta galay aan dhigayna maanta sisin aan dhigayna maanta dalka nyaanya iyo digiraan beerayna nidaamkaas ay ahayd marka isku duubniyaa jirti iska war maqalaa jirti laakiin hadda beertayda ma ila leedahay waxaan doonaan ku dhiganaa ayaa dhacday tafaraaruq iyo khilaaf beertaan haddii beerta hadda bariiska lagu dhigay taas haddii oo bariis lagu dhigi waayo waa go'aysaa taas ama waxaa u kordhaya cusbo si fiican oo tan ay bixin cusbadii oo beertaan tuftay waxay galaysaa beerta diriskeeda ay galaysaa waxa la roon diriskaada wuxuu dhigo inaad dhigtid ma jirti maalgelin loo sameey jiray beeraleyda xilligii dawladda ha bangiga la sameeyay bangiga dawladda la sameeyay bangiga loo sameeyay beeraleyda bangiga ay lacag ka qaadanaysay waan iskiga soo shugaysay waa u soo cadeynaysa horta maalgelin lama fasal iyo saddex fasal taa kuleena ahayd horta beeraleyda waa la garab qabtay migi isku filnaata kadib waxaa la yiraahdaa iska bixiya kalka wax mudantii qaata ee iska bixiya laakiin ilaa heerkaas laga gaaro waa la kabaayay waa la kaalmeynayay ma jira bariiskaas markuu soo go'o beeraleydii suuqyada ay geeyaan ganacsi ama sida dibadda loo qaado kale ama mashaariic hay'ado qaato kale ma jireen magaca joor iyo jidda magalaleh si fiican ilaa intii gada iyo garbahaaray buulaxaaba iyo aagaas laga iimaanayay dibadahana waa jirtaa maano in loo qaado jiray dibadahana waa loo qaado jiray makasino aag oo bariidkan kan oo dalka kan oo dibadda kan koobad ku iimaanayo oo haddana nafaqada dhan laga qaaday oo waxa la geliyay foorna la geliyay oo la dubi oo muddo badan baqaaro waxay waa laakiin kainan borotiin oo leeyahay nafaqo oo leeyahay ما شاء الله واي كائنا نينك عنو اسلا مركي جسميgiisa waa laga kasay oo anaga caruurtayna aaba ka dareegnay macna jismigooda marka cuno aan galna anaga mooyaan ku tumanayno unka waa tahay hadii xilligaas oo joor ama jidda magacaas oo bariiska oo sababay hadda maxaa isbedel ama nusqaan oo ku yimid bariiska hadda waxa ku yimid kanaaladii oo maxay dhaanay oo iska duugmi dawladii oo burburtay kanaaladii oo iska duugmay abuurkii oo maxay dhaanay xiriir galay ganacsigii oo meel wada lahayn markii ay baasha timaado RC iyo waxyaalo iyo adiga hay'ado ayaa wax keenayo bariiskii cid ka danaynaysa ma balahabo suuq la'aan mana cuni kartido waa ka tan badan yahay meelad u iib geysadna malaha marka xiriirigaas keeni in laga caajiso marka waa tahay maxaa hadda kula dardaarmaysaa beeraleyda gobolka Shabeellaha Dhexe ama kuwa reer Jooga waxaan kula dardaarmaa beeraleyda marka uu horta in la taakuleeyo beeraleyda waxaan ugu diyaar gareynaa in ay ka xanaaqin in ay maxay dhaanay wax soo saarka in ay ka caajisan maxaa jira haddii noloshaada ka fikiri waysid silcad u dhiminaysaa gaajo iyo silca u dhiminaysaa wadan kalena in aan u qaylino oo hana laga soo gaaro qaxooti agnahay kananahay in aan niraanana wax laga roon yahay waa sabcad xumo waay maxaa jira waa kan wubi markab waay oo noo saaran wubi oo nacfi lahaa waa kan milis la qabo khayrka milis la qabo anigii khayrkan qabnay aan leenahay ana laga soo gaaro aan lamada qori in meel ku tatafno aan leenahay qaxooti agnahay buushis sabirna laga qaada adduumaadkana laga geeyna waaba yaabihiin adduumaadka dhan waaba yaabihiin waxay leeyihiin dad oo nimcadaan ku jiro in ay afarto raastoodii ka soo tagaan oo afarto qori in dhistaan qaxooti agnahay anoo soo gaaro in la yiraahdo iyagoo dalagooda diyaaradku waraabinayo caradana la soo iibinayo unuka caradayna anaga iskale xilli walba waa noo diyaarsan tahay unuka wadan kale maan ka soo gadanaya anaga laakiin kuwan tuugsanayno oo qamadiga iyo wax lagu beerayo waa meel dhagax dhulka xataa dhagax oo caro lagu tuuro marka waxa leedahay dhulkiinu kalsoonaada
oo beeraha u qalab qaad beeraleyda oo Hirshabeelle waxaan ku dardaarinaa meel kasto ay joogaan jareer iyo jaleecba nin kasto waa wax soo saar waaye waxaan ku dardaarinaa inay nimcadaan ay marna ay deynin oo inaka caajisan haddii lagu taakulayo iyo haddii lagu taakulayninba laba goorbo nihida ku dhismayso haddii guriga ku yaal xataa nihida ku dhismayso waxaan ku dardaarinaa in ay inaka caajisan bariis ay ka caajisan galay ay ka caajisan nyaanya ay ka caajisan digir ay ka caajisan loos ay ka caajisan hataa kii waxaa lagu sharbi meeshaan adiga tacab oo dhan oo dhulkan ka bixi karo tacab oo dhan dhulkan ka bixi karo waa tahay waxaan intaas ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii beeraha iyo xoolaha ee TV-ga Hirshabeelle maalin waliba xilligan oo kale aad ka daawo jirteen barnaamijka maanta waxaa idin soo saaray anigoo ah Cabdifataax Nuur Sanay Socdaal sidoo kale kaamirada dhanka kaamirada waxaa ii fadhiyo Liibaan tan iyo intaan kulmi doono waxaan idin leenahay sidaas iyo nabad diino ma santahay